السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جانل كينا كوبعينتا قرادكا عرورتا maanta waxaan ka wada hadlaynaa sideen ugu dhignaa caruurteena kuwana dhageysto. Waxaan noo hayaa laba shay insha Allah hadda ku dhaqano naga saacidaya caruurteena siday noo dhageystaan. Number 1 hadalkaada waalido qiimo u yar oo hadalkaada dahab ka dhig. Maxaan ka wadaa saas? Hadalkaada ha ku dhaaranin waxaadna sameynayna. Ka soo qaad hadhihin wiligaa dabo cunuga doo qalad gala ka soo qaad. Wiligaa dabo wax ku gadima macquul ma ah. Wiligaa dabo guri ka biximeys macquul ma ah. Taas waxay bartay number 1 beentan Ilaahay ma jeclo. Number 2 waxay noqotay hadalkaada inuu qiimo yeelanin markaas ku dhaaratid cunugaada wuxuu ka sugayaa inaad sidii aad samayso. Marka waxa macquul ahayn ama cunugaada oo wax dhici kara ha ku dhaaranin. Hadalkaadana adi qiimaha inaad isku yeeshid oo meesha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhiga aad isdhigtidna caruurteena waxay naga caawinaysaa inay na dhageystaan anakana ayna noo arkaan hadaladeena inuu muhiim yahay. Midda labaad ha ku celcelinin hadalka. Maxaan ka wada ka soo qad guriga ka bixirtay war ka baahada gasho war dhaqso soo baxso waqti si caruurta hal mar la hadal waqti si ay ku fikiraan marka u hore 5 daqiiqo kadib waxa la sameyn hadalku iska dhowr maraan ark waa iska daba keenaysa TV-ga tami iska baahada gasho saxar inta u carroosin waqti intii la gaaran ka hor u soo sheeg 5 daqiiqo kadib waa bixina. Taas waxyaabaha ugu dhibka badan oo caruurta hadal guriga marka joogno hadalkan ku celcelino markay banaanku baxaan oo iskuulada ama meelaha waxbarasho ee aadaan dhibaatada ka qabsato waxa weeye macallimiinta hal mar bay wax dhahayaan. Waqtiga banaanka la baxayo waqtiga wax la akhri lahayo waqtiga kan waa hal mar bis. Cunugii u bartay oo hooyadiis maanta oo hadalku ugu soo celceli jirtay maabihiis wuxuu sugaa in lagu celceliyo. Taasoo hadhow dood ka imaado caruurtiina nama dhageystaan. Waayo waan dhageystaan caruuraha kale kama duwan caruuraheena laakiin anaka waxaan barnay muhiim ma aha hadalka ilaa lagu celceliyo kadibna aan xanaaqo kadibna aan qayliyo markaas hadalka muhiim oo yahay. Marka hadalka inta yareekar hal mar dheh maalmaha u hore sortum ku afcaysa hal mar inta hadal laga yeelo laakiin u sheeg caruurtaada waxa dhahaa mar dab aan hadal ku celcelinaa kadib bil amal waxa ku wada hal mar ina hadashid mar labaadna aad dhahdid waan hadlay ogaad mar saddexaadna aad ogeysiisid oo horta mar u hore sort cunugu ku maqla cunug oo ciyaaraya ama wax ku sii jeedo ama hoola kala sii haysta adoo halkaas dhahdid inuu ku maqlaan laga horta hubso ku maqla marka hubsatid dibdaba ugu celin adduunka saas ma u shaqeeyo hadee weynaadaan banaanka subax hal mar la wax loo sheegaa marka hadalada aan ku celcelinayno waxyaabaha ay ka qaadaan madax adeega aan ka cabaadne meeshaas ka mid ah insha Allah videoyaashan dhowr shaxan baa ka soo dhigaya insha Allah kan waa qaybtii koowaad waxaan rajaynayaa inuu idin anfaco inta videoga kale aan ka soo gelinayo intaan soo baroobeeyo waxa ka faa'iideena insha Allah ila soo socodsiyo kaamanka hoos ku soo qoro subscribe like السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.